إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها إن شاء الله رب سبحانه وتعالى درها لك النقضة سي شيخنا شيخ عبد الرحيم وشيخي أي ما أنت واللقاء محاضرة معهن ولا كلن كاسو كودهن علمي يا فضوى يا نصيحة وحالينا شتينا شيخنا شيخ عبد الله عثمان أيا وصية إسكالة ميل شيخنا جوينا أنكو هذا لنا ما بهن إلا هم لينا محاضرة وسودوين شيخا كسودوينينا إلهي سبحانه وتعالى وحنا قبرينا عمري عمري دارينو كدغو خاتمة إلهي سبحانه وتعالى إنه وهجاجيو علمي رب سبحانه وتعالى إنه وانفعه أولا رب سبحانه وتعالى إنكم هذينينا الله إسلام ماذا إيمان كي نقوم النايستي ما أنتم مالين جمعة محاضرة أما كلمة أي كذا عيسى مركز إمام الشافعي الله إنه قرينا هل كاسوا حاضرنا أيام هذا السلام waxaan kaloo mahad u celinaynaa walaalaha barnaamijkan ka soo shaqeeyay oo mudiirka maktabada Sheekh Umar iyo ragga la shaqeeyo iyo gudiga waa yakana way mahadsan yihiin waxaan rabaa markaani hadalkayga waa gaaban yahay لأن اللقاء sheekha loo qabtay liqaha waa noo wada qabtay arday baan wada nahay waxaan rabaa markaa kelimo gaagaaban ama kelimooyin gaagaaban inaan tilmaamo waxaanu maray nin walbaba wuu rabaa cilmi inuu barto nin walana wuu rabaa daaci inuu noqdo nin walana wuu rabaa xoolkii nabi inuu ka cabo nin walana wuu rabaa janno inuu galo nin walba sidaa waa jecel yahay laana cilmiga sharaf wey jahligana waa ceeb iyo xumaan wey cilmigiisu Sheekh Cabdiraxiim tilmaamay علمي مركز لبرتو قلنا جنة كو قلان قلنا نار بي كو قلان إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنا نقول كو علمي وذا جنة كو قلان عنوان كأما كلمة وحيتها آفات العلم علمي آفات يعذرك كلها نك خوفك علمي مركو برتو علمي او برتو علمي هدوسا جنة كو قل إلهينا أقول دوانين ninka cilmigu bartay cilmi fiican ma saasa xoolaha waxa arkaysa mar bay dhamaadaan waxa la yiraahdaa xoolihii cudur baa ku dhaco aafaa ku dhacdo waxba kama soo harin ninka marka qodobahan soo socdo ninka cilmiga barto qodobahan soo socdana cilmigiisa laga helay ninka aafaa ku dhacday ninka nin nool ma aha cilmigu wuu bartay cilmigana dadku baraa sidan soo socotana waa laga helay sida hadii laga helo ninka cudur ku dhacay haduusan ka toobadkeen rabbi subhanahu wa ta'ala uusan u soo noqonina cilmiga naar buu galay nusuus cad baa cadaynaysa qodobka koowaad hadaan soo qabto aafatul ilmi waxa kamide ta'allumul ilmi liqayri wajhi Allah ta'ala inuu qofka cilmi barto علمي محو بران إلهي قيد كيسو بران علمي وحو بران شيخ هبل إلا يرو بران
cilmigii muxuu baran dhaqaale inuu ku helo u baran cilmigii muxuu baran inuu dadka kula marmo u baran cilmiga qofku baran ilaahay subxaanahu wa tacaala daraadiisa uma baranayo muxuu baran shay kale u baran waa aafaatu lcilmi aafaa ku dhacday ninka asaga cilmigiisa cilmiga muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la baran in loogu dhowaado cilmigiiba waxaa u baranaysaa qaab kale u baranaysaa hadda waxaa arkaysaa in badan baa wax barataa salaadii nin walbaba buug iyo qalin buu qaataa waxbarashaa loo wada dhaqaaqaa inta nacfiga lahna wax yar wey maxaa dhacay waxaa laga yaabaa cilmiga la barani inuu qofka u barto wax ka inuu raadin inuu magac ku helo in qofka la yidhahdo doctor fulaan in la yidhaahdo qofka sheekh fulaan in la yidhaahdo dadka inuu culummada kula murmo qofka muxuu u baran inuu dadka la doodo bes muxuu u baran inuu dhaqaalo ku helo bes muxuu u baran inuu magac ku raadiyo bes sidaa ninka cilmigiisa ku barto waa aafaatu lcilmi oo arrintaa ma fiicna wey ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay man kaana yuriidu xarha dunyaa nu'ti minha man kaana yuriidu xarha alaakhirati nazid lahu fii xarhihi waman kaana yuriidu xarha dunyaa nu'tihi minha famaa lahu fi laakhirati min nasiib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey ninka aakhara iyo alla u dhowaansho ay noqoto waxbarashadiisa camalka uu samayna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ugu dhowaado rido ilaahayna inuu ku helo ilahay wuxuu lehy camalkiisa waan u siyaadinaynaayo waa u lalaabaynaa ninka ilaa shaqada uu qabanaya cilmiguu baran adduunyo u barto nu'tiihi minha adduunyada inta loogu talagalay unbaa laga siin ilaahay agtiisana wax nasiiboo u sugnaada ma lahan saas annaga waxaa ka sal alayh wasalam xadiisulqudsi ilaahay subxaanahu wa tacaala u leey aniga qani baan ka ahay in wax liila wadaajiyo ninka anig wax ila wadaajiyo wixii aan aha wax kale iigu daro camalkiisa iyo wuxuu ila wadaajiyo inta waan oga tigo rabbi subxaanahu wa tacaala markaa qodobka koowaad waa cilmigoo la barto ilaahay keyrkiisa loo barto qodobka labaad waa aafaatu lcilm waxaa ka mid ah kitmaanu lcilm cilmigii oo la qariyo cilmigii qofkan waa bartay ilaa cilmigii waa qaranaysaa cilmigii dadka u sheegi maysid cilmiga maxaa loo bartaa cilmiga waxaa loo bartaa dadka in la gaarsiiyo jahliga dadka in looga bixiyo xaaraanta dadka in looga digaa loo bartaa cilmigii baa qaranaysaa waxaa laga yaabaa cilmigan aad taqaano markii aad sheegi lahayd hebel inaad ka baqdo ama nin xoogaa dhaqaale ku siiya aad ka baqayso cilmiga aad qariso aafaatu lcilmi waxaa ka mid ah kitmaanu cilmi cilmigoo la qariyo cilmiga qofka inuusan qarin way rabbi subxaanahu wa tacaalana waa ceebeeye dadka cilmiga qariyaan ama yahuud ha lagu ceebeeyo ama nasaar ha lagu ceebeeyo ama cid kasta oo cilmi iday barata cilmigaa qariso way ceebaysan tahay markaa kitmaanulcilmi waa aafaatu lcilmi cilmi markaa dadka in loo sheego wey inaadan cidna oga baqin wey ama shariif meeja ha joogo ama sheekh ha joogo ama nin madax ha joogo ama wasiir ha joogo ama cid kale ha joogtay xaqa inaa caddayso wey haddii cilmiga aa barata aa qariso ama adduunyo ku raaso ama qaab kale ku raasay arrintaasna khatarteeda ay leedahay qodobka saddexaad daliil soo qaadan maayo waktigii baa iska gaaban qodobka saddexaad oo aafaatu lcilmi waxaa ka mid ah alqowlu cala allaahi bilaa cilm inuu qofka eebbe subxaanahu wa tacaala dushiisa ku qowlo bilaa cilmin cilmi ma yaqaano ilaa muxuu rabaa inuu fatwoodo xalaashi inuu wax ka sheeguu rabaa xaaraanti inuu wax ka sheeguu rabaa kitaab alle inuu wax ka sheeguu rabaa sunno nabi inuu wax ka sheeguu rabaa mana aqaano arrintaa aqoonu ma leh ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu leeyahay walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin uma laqaطacnaa minhu lwatiin nabigaasaa lagu lehy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaan jirin hadduu sheegi lahaa waxaan u waxyoonin hadduu dadka u sheegi lahaa ilahay wuxuu le yamiintaan ku qaban lahayn lanna yamiintaa wax lagu qabtaa ee xoog badan xididka wadnaha ku yaalana waan jari lahayn bui rabbi subxaanahu wa tacaala saasaa nabig wuxuu ku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninka aniga ugu been abuurta waxaan dhihin dhaho maxamed baa dhahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh halkaa uu jooga naarta uga diyaarsiyo nabig salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii markaa walaala aan rabno inaan fatwoonno ama inaan wax sheegna haddii aan rabno inaan cilmiga barano wey
وإن أنا رب سبحانه وتعالى رسول كيسا إن أنا كبين أبو رنيوي قلب كأفراد وآفات العلم وحاكمته الكبر والعد قفك يسلوين هذا إنا يسكو على تضد كورن إنا كسر رئيسه إنا يسكو على تضد كورن إنا كعلم بانتهي ضد كورن إنا كعقل بانتهي ضد كورن إنا كحكمة بانتهي سيدا قفك دوسكو أرك وقتر نبينا وحنوشه صلوات الله وسلام عليه جنة إنه سنجري من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر نبي صلى الله عليه وسلم جنة مقالة نك قلبي سكبر يرؤ كجرة هذه عركة إسلام رئيسة هذا الكذا هذا إن لقد بدأ ما أقولي مسألة ذا الشيء إن لقد بدأ ما أقولي ننادو كبير بدن باتهاي ننادو عجب بدن باتهاي سيدا سبع آفات العلم والنبي صلوات الله وسلام عليه حديث كي سوف عطيني كبير كان نك كسف وجنة إنه سنجلين وقلب كأفراد قلب كشنات وآفات العلم وحاكمه فقد الخشة فيه علمي آبرت إلهي سبحانه وتعالى إن هذا نوقع عبسا علمي واتقانا أو بخاري واتقانا أو مسلم كبا تقانا أو تفسير كبا تقانا سنن كبا تقانا دين واتقانا إلهي كعبسا ميشت إلهي كعبسا متيت حران تبا قادنا إيسا علمانية دي بأورد إيسا قبيلك كشقين إيسا انتو حنبورنا بأوسعين إيسا علمي قادة المركة وحمد ترى علمي خشال الربا إلهي يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وحاول إلهي سبحانه وتعالى كبقى سربنا بقى علماء هديسن إلهي كعبسن قفك علماء هدور بالدين تورن دشها كاية قرآنك حافظها كو هذا معنيه سقرآنك هيا قانو بخاري دشها كيا قانو هدريريو هدوس الرب سبحانه وتعالى كعبسن إنك عالم لمرها ساسا علماء عبد الله المسعود لما يرى عالم أما شيخ لما يرى عن كثرة الحديث ننك حديث فربنا أوريو علم عالم كما نغضب ولكن العلم أما عالم وحالي هذا عن كثرة الخشة ننك إلهي سبحانه وتعالى انت بدن كبقه ننك أسا علماء لي هذا ليس العلم أما علمي أقول نبينا عن كثرة الرواية أحاديث فربنا إن أخريه تفاصيل تأخريه فقه أخريه فضوضا اللي ويديو تاس علمي معها علمي وحالي هذا قفك إنه أقبقه علمي أوبرت رب سبحانه وتعالى إذا ما أنت أقعب ستامرك علمي ما تقانا وإنه وحكار هيو هدوسا علمي عن برنا إنه حوسا كاعلنين حنتي أوسا كاعلنين نميمة أوسا علنين قبلية أوسا علنين علمانية أوسا ديدين والدنيا أوسا ديدين قرن أنت حنبا أوسا ديدين كعلم اللي بيري هذا علمي مركا آفيس وحاكمة على كعبس إلا وايو قلب كل حال آفات العلم وحاكمته المراء والمخاصمة والجدال إنه قفك علمه أبرتضاد مرما بس إنه ضدك الله مرما إنه ضدك الله ضالة سياسو علمه أبرن بدل ما علم إلهي درادي سوء برن لها هل شعب الربا بس مكتبات وقلي أحاديث قريبات كو سوقري مسألة أذك بو سوقادي إنه ضدك الله ضادو الربا إنه ضدك فائدة يسحوي إلا أساق قرشوه برن حيدادوي إن مركز سالة ضالة ضدك أولا مرما ضدك الله مخاصمة هو شعب الربا تاسا وآفات العلم آفات النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسلم من انت يهانون كسغنايين كدنبه إلا أوتوا الجدل وحال سي مرمايو جدل بالسيوي قلب كتضبات وآفات العلم حاكمية عن النسيان هلمان علمي والله هلمان علمي عبرتي وآسي دايسو ساسا نبي حنوشه صلوات الله وسلام عليه نينك قرآنك يقانا وحولميده نينك جيل وروكلا هدو نينك جيلي سحر حرتو جيلي وحرناني وسقناني هدي جيلي وسي داينا جيلي وكلم علمي واسدا هدان قعنت لوها هاينين او لا اخرينين او لا مراجعين او لو دقمين علمي وتغي marka آفات العلم وحاكمته عن النسيان وحاكمته إلهي سبحانه وتعالى محليه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي واسكها المامي قلبك السيدة وحاكمته القرور قرور كوغو دعو علمي وابرتي إلا قرور كوغو دعو إسلويني كبر
iyo quruur baa ku galo waxaa aragtaa wax kaa cilmi badan inuusan jirin mikrofoonka yeeraba dhegtaa u dhegaysaa si aad dadku naqdiso quruur baa kugu dhacay isla weyn xalqada markaa soo gasha maxaa rabtaa kuraas in lagaaga kaco maxaa rabtaa marka lagu yeeri sheekh hebel iyo doctor hebel iyo fulaan hebel in lagu dhaho magacaasaa rabtaa quruuraa kugu dhacay dadka dhan inaad ka saraysaa isku aragtaa waxbana laguma weynin karo waxbana dadka ma dhegaysan karto wax inaad dhegaysa diyaar uma tiidoo maskaxdaa ku buuxdaa agtaadana wax lagumaba dhihi karaba quruur baa kugu dhacay aafaat lcilmi wey qodobka sagaalaad oo aafaat lcilmi waxaa ka mid ah atacasub bilhawaa والتقليد الأعمى والتحكيم لآراء الرجال تعصب wax la yiraahdo qofka hawadiisa inuu iska raaco tacasub ama madhab inuu tacasub ku dhaga soo naskay arki aayadii quraanka soo arki xadiiskii nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi soo arki wuxuu ku leeyahay sheekh fulaan baa siyan dhahay madhabka shaafiiciyada sidaa qabtaa maalikiyada sidaa qabtaa xanaabilada sidaa qabtaa tacasub inuu qofka tacasubo ama hawadiisa iska raaco ama taqliid siyaasa la yiri waxna soo hayana ma lahan iyo qofka inuu ka xugun yeesho aaraa'u rijaal rag warkooda kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala uma socdo sunna nabina kuma xugmiyo rag warkooda hebel baa sidan yiri iyo hebel baa sidan yiri hebel baan sidan ka maqalnay hawshaas tacasub waa aafaatu lcilmi qofka muslimka maxaa la rabaa meel allah meejuu naska mar adiga inaad marto xurriqa aw qutic ama ha lagu gubo ama ha lagu googooyo naska meejuu mar inaad martaas waa inaadan leexan adiga nasfa meeja ma mara naskaa halkiisa in la maro wey qodobka tobnaad oo aafaat lcilmi waxaa ka mid ah tasarucu fi lfatwa inuu qofka fadwada ku degdego adigoo mas'aladii garanay baa waxaa rabtaa inaad fadwooto adigoo cilmigeeda haynin baa waxaa rabtaa inaad fadwooto waa aafaat lcilm arrintaasa in laiska ilaaliyo wey qodobka 11 oo aafaat lcilm waxaa ka mid ah ataxaasudu walxiqdu xasidnimo inaad noqoto xaasid oo dadka rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay cilmiga uu siiyey ilaahay maalka barakaysan uu siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaadda uu siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnada iyo khayrka u waafajiya xasada xaasid baa tahay am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allaahu min fadli aafaat lcilmi markaa waxaa ka mid a xasidnimada wax xun wey saasaa culama waxay dhahaan qofka xaasidka qofka asaga uu xastaay intaan la gaarin 10 shay oo cuqubaa lagu ridaa asaga qofka adiga aa xastaysa inta hawshan ay gaarin 10 shay baa horta adiga lagugu aafeen adiga xaasidka ahayd aafaat lcilmi waxaa ka mid ah xasadkaa ka mid inaadan dadka xasdin baa la rabaa ninkaa yar oo kaa cilmi badan baa arta inaad u tahniyeyso ninkaa weyn oo kaa cilmi badan baa inaad soo dhaweyso nin kula ayni oo kaa cilmi badan baa inaad soo dhaweyso inaadan xasdin ka faa'iidaysato u tahniyeyso garab istaagto khayr ku sheegto ku faraxdaa la rabaa ilaa ninkii madaxa kor u qaado hadduu madaxa ku xanuuna ka war ninkaa xoogaa ku aragto ama xoolaha ku aragta waa xastaysaa caruur baa ku aragta waa xastaysaa cilmi baa ku aragta waa xastaysaa dhaqdhaqaaqii dacwaa ku aragta waa xastaysaa arrintaa ma banaano waa aafaatuha cilmi wey waktiga uga gebagabe labadan qodob aan kusoo gebagabeeyo aafaat lcilmi waxaa ka mid ah idlaalu liahli lcilmi lilcilm dadka ahlu cilmiga inay cilmigoodii ihaanaystaan dadka cilmigeeda dad sharaf la wey ka waran adiga cilmiga leed haddaa cilmigaad ihaanaysato oo dadaan cilmi rabin la daba orodo oo cilmigaada meel aan munaasib ahayn geyso meeja qabaliya looga sheekayn haddaa geyso meeja dimuqraadiya looga sheekayna haddaa geyso meeja baankiiyo beentiyo barabagaanka loo taga cilmigaada haddaa geysa ka waran cilmigaadii baa ihaanaysatay ehelka cilmigana waa ihaanaysa qofka cilmigale qof sharaf wey hadduu ilaahay cilmi ku siiyo cilmi wax ka sarreeyo qofka la siiya ma laha waa wixii ambiyada la siiyey cilmigii markaa lagu siiyaa maxaa samaynaysaa adigana waa isdullaynaysaa ehelkiisina waa dullaynaysaa meelaa munaasabana waa dhigaysaa taasna aafaat lcilmiga ka mid oo aafada maanta na haysato hal kelima haddaa sheegta sheekh hebel muxuu sheega lagu leey hebel muxuu inoo sheegi hebel ma nin arday baa nin jira ma aha arrintaa arrin khatar wey
وإن علمي ونجا موضة نك علمي لو حاولت أنا ضدك وصل رئيسا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علمي قف كسر إنما يخشى الله من عباده العلماء هل كعديق مريسو إن أمن كنت بالنقطة أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من قشاها ويجلو ما وقريسي أبيات يعني علمك نك علمك نصروي ما أنت انتهى مرهينا ماذا وحبا هنا علمانية وأرض هدارت وزرد وزرد يا مال بخت الوعن هذه اللي أرك علمي ولا جيني علمي يعني أهانيسن قدم قدام بيو وقتي ولا ماضي الدعوة في العلم والقرآن آفات العلم وحاكمته إنه وقفك علم الشاكت أنا علمي أنا قانا كم بان قانا أنت صوفني بان كجوابا أنا والي يقانا هل كان باتاجن وآفات العلم علمي تقانا إذا كعلم بدنا ذاتكم علم بندي إن هذا نسكو أركن ذاتك قفك وعلم بن إذا إن هذا نسكو أركن آفات العلم إنها ساكمده أنت كلا إذا منا كما جاري كرنا شيخ الحلي وقتي وكذا ماذا وحان ربا هلك إن كسو قابي كلمة شيخ إن كوري جزاك الله خيرا وبارك الله لك